أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت تاريخه كويس نقي بشي صدحات إلا بدو خميس عليه تمخا ومقعي وسهر أحمد محمد وسهر هلجن ومركي يجوه رين والله شيء ذا قبطو شر صحافة ده إن هدان إن يرى تاريخ ذا والله شيء ذا يسيو أنا بحن كم ده مجاهدين في السنة بحن كم ده هذا كي كتب عيد دل كان يقدر كم إنه واحد نقدان waxaan maxay hayday ahay fanaaniintii kamid ahayd SNM waxyaabaha kalifay maanta inaan shirkan jaraa'id qabto waxa weeyaan ibn aadanka dad unba iska cambaarayay iska shaabadeeya taariikhda waxaan ka soo bilaabay geed deeble waxaan dhihi jiray dhaawacii SNM-ka waxa kamid ahayd saddexaad ama maxay hayday koobbuur waxaan ku meelahan ku dhihi jiray waxa kamid ahaa kaama bokor waxaan dalkan iyo dadkan horumarkooda iyo wanaagooda u soo maray halgan dheer oo hubaysnaa ama mid hees ha ahaado ama mid baysiya dhaawacis ha ahaado waxaan maxay hayday marka maanta ahaan u sheegayaa dadka shaabada dadka dabasita qofku waxaanu geeyin ama ka geeyin ku oranaya hadii aan ahay qof reera ama reehibala halkan ku dhigi jiray dhaawaca waxa kamida kaama bokor baa kamida waxa kamida laan qeyrta kamida baleegibadla kamida salaxley baa kamida dad aan ku soo tabcay oo badan oo dhaawiciyay oo dheey qarankan ay u shaqeeyaan joogaan halkan u dhasheen ka soo jeeda waa galbeed gunti waa dabeel weyne iyo maxay hayday xarshin hadii inuu shaabad leeyo shaabadaynayo la isoranayo sahra halgan waxay maxay hayday abyaaladiista u noqotay waxa idin cadeynaysa marxaladaha la soo maray halkan waxay noqotay fanka iyo suugaanta waxaan hay sahra halgan magacaydii sheegay fanaanad qaran Somaliland ahay Somaliland ku xusan waxaan ahay qof calankeeda uga qiimo badan yahay cid walba reer walba ummad walba nation walba waxa ay qiimo badan calankayga dalkayga iyo dadkayga halka aan geeyay calankaygana maanta qof Somaliland sheeganaya ama madaxweynaha sheegto ama maxay hayday cid kale ma sheegtay calankayga halkaan geeyay cid geysay ma jirto weligayna taw heestay meehi ninumaan heesin reerumaan heesin madaxweynaha heesin mana ihi ilaahayna igama dhigato qof iyo shakhsi u heesta ama reer u heesta waxaan u heesaa waa qarankayga oo difaaco oo hadalkayga awood kale ma leeyahay laakiin hadalkayga iyo heestayda ku difaaco waan dalkan waan ka dhoofay waxaan u dhoofay Yurub waxaana igu kalifay inaan dhoofo anigoo dalaan soo xilgalay haysta markii umadaydii dhinac ka wada jeediyay isku soo wada jeedtay niyad shabigu dhacay baan uga dhoofay halkan waxaanan kordhiyay dardartii iyo wacyigelintii aan dalkayga u hayay maraba ma fariisan laba documentary baan ka sameeyay dad daawadeen mid Al Jazeera ah oo stranger rayra iyo documentary kale oo isaguna 48 minute oo ku hadlaya English Faransiis Chinese Japan intaasoo af ku hadlaya wadanka waan ku soo noqday waxaan ugu soo noqdayna inaan maadaama aan muwaadinad Somaliland daro oo aan hanti kale lahayn aan ahay inaan dalkayga wax ka shado ibn aadanku qofka fikirkiisu isbedeli karaa waxaan isiri bal markaan arkay marxalad dalku ku jiro bal waxaad samaysaa xisbiyada ku biir siyaasadda wax uga bedesho waxaan ku biiray xisbigii wadani waa calankii ugu horeeyay aan korkayga saaray xisbi mana ahayn reer hebel baad ku biiraysaa laakiin xisbi qaran oo dalkan iyo dadkan wax ku soo kordhinaya ayaan doonayay ayaan ku biiray hagardaamo badan iyo hadimooyin badan baa xagga kale iga soo gaaday ilaa in maharadaydii lagu xiro aariyu la dul keeno wax walbana waxaan ugu dul qaadanayay qarankayga iyo Somaliland maalintan arkay inaanan siyaasiyad noqon karinna waan ka baxay xisbi kale ma
muwaadinad baan ahay waxaan la soo shaqeeyay intii madaxweyne dalka soo madaxweyne ka soo noqotay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan halgankii waa la joogay cigaal baa ku xigay waa la joogay daahir riyaala ku xigay waa la soo shaqeeyay maxay hayde wax iga soo qabsaday baa siiraayo waa la shaqeeyay oo idinkay arkay inaan dalkan hanti badan oo aan dibadda ka keenay soo geliyay maanta madaxweynaha haysta waan la shaqeynaya waayo mabda'ayga ayaa sidaasa on muwaadinad ku ahaan xor ku ahay waxaan u soo halgamanay waxa weeyaan inaan fikirkayga xor u ahaado anigoon ahayn reer hebel laakiin anigoo ah sahraha halgan Soomaaliland waxaa dhacday in facebookgii la jabsaday shalay toole la iiguna soo halqabtay inaan ahay qof taageertay maxay haydeen Muuse Biixi anigu codkayga xor baan ahay ciidan doonaan taageeray waa shalayba waxaan taageerayay iro maanta hadii Muuse Biixi aan taageero ku guuleystay waxa weeyaan macnaheedu ma aha waxaan ahay qabyaaladiista waxaan ahay Somaliland baan ku dhashay Somaliland baan ku dhashay dadkaygaan wax ku ahay dadka intay facebookga jabsadeen soo dhigay caare soo dhigay ani Somaliland qofkii nacab waan nacabahay imika baruntaan idin sheegaya ciduu doonaha ahaado waxa laakiin wax lala yaabo oo laga xishooda oo ixtiraam darro ah oo qiimaha qofka bini'aadanka iyo jiritaankiisa iyo dignigiisa oo xudhimaysa inaad intaad page-keygii jabsataan aad ku soo qortaan waa dagaalkii internetka ee garxajis iyo awal igama kin qabato kuwa maanta waxa ku soo qorayna waxa weeyaan kuwa aan garanayn dalkan iyo dadkan iyo ummadan wax loo soo maray aan garanayn weeyaan waxaan leeyahay alxamdulillah dal nabada iyo dad nabada baan joognaa wax wanaagsan baynu haysanaa waxa aan anagii u soo halganay leenahay inala wadaaga ayaan haysanaa waxaan idinka sugayaa inaad page-keygiina ii soo celisaan horta quraan ma mid baan idin sheegay kitaabka ilaahay baa la bedeli karin wax walba oo kale baa la bedeli karaa wata dastuurkii sharciyada la bedelay waxa jabsateena waa page laakiin waxa gaf iyo maxay haydeen dhaawaca intaad afar inanoo yaryar oo iyagu internetka social media isku haysta ay reero dhan magacood iyo sharaftood iyo karaamadood iyo raggan ku tacabnay in waqtigeeyaga gelinay ilaa maanta qaarkaadidu ka socoto inaad ku gaftaan oo magacoodii aad ku ciyaartaan oo tiraahdaan haddaan nahay reer hebel anigana imaam matashaan iyagana ma matashaan Somaliland ani iyo adiga weeyaan idilkeen rag iyo dumar inagoo weeyaan isku duubni wadareed waxa weeyaan waxaynu ku nahay wax waa Somaliland nimada anigana hay u gafina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.